sirta guusha sidee caadooyin yaryar noloshaada u bedeli karaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka ku soo biir oo subscribe dheh waxaan idinka codsanayaa inaad 100 qof gaarsiisaan maanta tani waa magaalo aad u xasiloon waxa ku nool wiil la yiraahdo Gotham waxa uu ahaa arday dhexdhexaad ah ma ahayd mid aad u caqli badan mana ahayd mid liita wuxuu lahaa riyooyin waaweyn oo uu ku gaari lahaa guul balse hal dhibaato ayuu la daalaa-dhacayay waxa uu leeyahay anshax iyo nidaam mar walba waa uu dib dhigi jiray hawlaha uu iska indha tiri jiray hawlaha yaryar waxuuna dhib kala kulmi jiray in uu yeesho jadwal uu raaco inkasta oo uu lahaa riyooyin waaweyn Gotham weligiis wax ficil ah ma gelinin waxa uu qorsheyn jiray waxyaabo waaweyn laakiin ma dhamaystiri jirin haddii ay tahay waxbarasho jimicsi ama in uu barto xirfad cusub haddii jeer waxa uu dhihi jiray biri ayaan bilaabi doonaa laakiin biri waxba iskama bedeli jirin oo sideeda ay ahaan jirtay waalidkiisa iyo macallimiintiisa waxay kula talin jireen in uu noqdo qof nidaamsan laakiin hadalkooda saameyn kuma yeelan waxa uu aaminsanaa in kaliya dadaalo waaweyn ay guul keeni karaan markii uu dareemay in isbeddelkaasi adkaa xitaa ma uusan isku dayin macallinkii xigmadda badnaa maalin maalmaha ka mid ah Gotham wuxuu la kulmay macallin duq ah oo la yiraahdo Master Nail kaas oo si weyn loogu tixgelin jiray magaalada xigmaddiisa markii uu arkay sida uu Gotham ula daalaa-dhacay nolosha macallinka wuu dhowl cadeeyay oo waxa uu ku yiri Gotham ma ogtahay sirta guusha nolosha Gotham oo aad u xiiseynaya ayaa madaxa ruxay macallinka ayaa sii waday guusha kama timaado hal talaabo oo weyn waxa ay ka timaadaa caadooyin yaryar oo maalinle ah kadib waxa uu u sheegay sheekada geedka bamboo beeraley ayaa dhulkiisa ku beeray inay bamboo ah maalin kasta waa uu waraabin jiray wuuna daryeeli jiray laakiin sanad kadib waxa ma dhicin 2 sano way daaftay haddana waxba kama muuqdaan dhiraha kale waa ay soo baxeen laakiin bamboogii wax horumar ah ma samaynin dadka waa ay ku qosleen beeraleydii waxayna ku yiraahdeen waqtigaaga ha ku luminin in aan soo baxaynin laakiin beeraleydu waxa uu hayay rumaysad wuxuuna sii waday waraabinta iyo daryeelka kadib sanadkii shanaad wax mucjiso ah ayaa dhacay 6 toddobaad gudahood geedkii bamboo wuxuu koray ilaa 80 cagood oo dherer ah beeraleydii waa uu dhowl cadeeyay oo uu yiri bamboogu ma ahayn inuu iska baxo wuxuu dhulka hoostiisa ku samaysanayay xidid aad u adag oo u diyaarsan mustaqbalkiisa sare guushu waa sida Gotham caadooyinka yaryar waxa ay u muuqan karaan kuwa aan qiimo lahayn bilowga laakiin waxa ay aas adag u dhigayaan guusha weyn Gotham ayaa si qoto dheer u fikiray wuxuu ogaaday in uu sugayo isbeddel weyn halka uu iska indha tirayay caadooyinka yaryar ee keeni lahaa guushiisa macallin caadooyin noocee ah ayaan bilaabi karaa ayuu weydiiyay si xiiso leh macallinku wuu dhowl cadeeyay oo waxa uu la wadaagay caadooyin nolosha bedeli kara waxa uu yiri waxaa jira 7 caado oo noloshaada isbeddel ku samayn kara 1 soo toosida xilli hore haddii aad saacad hore u soo toosto maalin kasta sanadkii waxaad helaysaa 365 saacadood oo dheeraad ah ka fikir waxa aad waqtigaas ku qaban karto Gotham weligiis sidan uma fikirin waqtiga wuxuuna go'aansaday in uu saacado hore soo tooso si uu naftiisa u hormariyo 2 akhriska maalin kasta haddii aad maalin kasta akhrido 10 buug sanadkii waxaad dhameynaysaa qiyaastii 12 buug buugtaasi waxay wax ka bedeli karaan maskaxdaada aqoontaada iyo mustaqbalkaaga Gotham waa uu jeclaa sheekooyinka laakiin weligiis ma uusan fikirin inuu akhriyo buugaag kuwaas oo horumar nafsadeed ah wuxuu bilaabay in uu wax akhriyo maalin kasta 3 dejinta yoolal yaryar haddii aad go'aansato in aad maalin kasta qorto 200 oo eray sanadkii waxaad qori doontaa buug dhammaystiran dadaalka yaryar waxa uu horseedaa natiijooyin waaweyn Gotham wuxuu go'aansaday in uu yoolal yaryar dejiyo halkii uu sugi lahaa waqtiga saxda ah ee uu shaqo weyn qaban lahaa 4 ka hortagga dib u dhigista markii aad dareento in aad dib u dhigayso hawl tira qabso sida 1 2 3 oo isla markiiba bilow shaqadaada tani waxa ay ka caawinaysaa in aad si dhaqso ah u faacil gasho Gotham wuxuu bilaabay isticmaalka farsamadan wuxuuna ogaaday in uu hawlaha dhameyn karo si fudud 5 mahadnaqa maalin kasta habeen kasta qor 3 waxyaabood oo aad ugu mahadnaqayso noloshaada tani waxay bedelaysaa maskaxdaada waxayna ka dhigaysaa mid farxad badan bilowgii Gotham waxa uu arkay wax aan macno lahayn laakiin markii uu sii waday waxa uu dareemay farxad iyo tamar wanaagsan 6 jimicsiga 10 daqiiqo maalintii
jimicsi yar oo 10 daqiiqo ah ayaa ka fiican sugitaanka maalinta saxda ah ee aad jimicsi weyn samayn lahayd. Gotham wuxuu bilaabay jimicsi fudud wuxuuna dareemay tamar dheeraad ah. 7 in aad xadido waqtiga aad la qaadato shaashadaha. Markaad isticmaalayso taleefankaaga, weydii naftaada tani ma ii horumarinaysaa mise waa khasaaro waqti. Gotham waxa uu ogaaday in waqti badan uu ku lumi jiray baraha bulshada. Wuxuu waqtigaas u isticmaalay wax qabadyo faa'iido leh. Guushi Gotham bila yar gudahood. Gotham waxa uu si joogto ah ugu dhaqmay caadooyinkan. Bilowgii isbedel muuqda lama arkin, laakiin waqti kadib waxa uu dareemay isbedel. Fahankiisii waa uu kordhay, darajadiisii waxbarashada way fiicnaatay. Wuxuuna noqday qof kalsooni badan leh. Sanadka dhamaadkii, Gotham waxa uu noqday qof nidaamsan oo mas'uul ah. Waxa uu ka tagay sugitaanka isbedel weyn. Wuxuuna diiradda saaray caadooyin yar yar oo guul dhisay. Sanado kadib, waxa uu noqday ganacsade caan ah. Dadkuna waxa ay weydiin jireen sirta guusha. Had iyo jeer waa uu dhoola caddayn jiray oo waxa uu dhihi jiray caadooyinka yar yar ayaa dhaliya natiijooyin waaweyn. Guushu ma aha nasiib ama karti gaar ah, waa caadooyinka aad maalin kasta dhisato. Haddaba caado noocee ah ayaad maanta bilaabi doontaa? Fadlan nagu soo biir si aan wax badan noogu faa'iido.